showga kadib waxaan aqriyay warbixin yar oo ku qorneed Twitter-ka Shahrukh Khan oo ku sheegay inuu adiga kula dooday barnaamijka kadib. Wuxuu yiri showga kadib dood yar ayaan la qaatay Dr. Zakir Naik aad ayayna faa'iido u lahayd. Waxaan jeclahay inaan ogaado sheekadaas faa'iidada leh ee idin dhexmarta adiga Shahrukh Khan. Enlightening session with Dr. Shahrukh Khan. markuu dhamaaday barnaamijka Shahrukh Khan ayaan la sheekaystay muddo nus saac ama 30 daqiiqo. Tijaabo wanaagsan ayay ahayd. Ma awoodo hadda inaan wixii dhan wada sheego maxaa yeelay waxyaabo badan oo kamid ah waxay ku saabsanaayeen arrimo shakhsi ah laakiin arrin yar ayaa hadda ka soo bandhigaynaa oo dadka u sheegaynaa. Waxay ahayd markii ugu horeeyay oo aan la kulmayo. Shakhsiyan markii ugu horeeyay oo aan la kulmayo ayay ahayd iyadoo jiraan in saaxiibo badan aan wadaagno. Saaxiibo asagu leeyahay iyo saaxiibo anigu aan leeyahay aan wada wadaagno. Laakiinse waxay ahayd markii ugu horeeyay oo aan shakhsiyan kulanno. Waxaana jirta arrin hubanti ah oo anigu ku faanayo oo ah inaan siyaasadeyda ilaaliyo. Taasoo ah inaanan cuskanin wararka meediyaha iyo warbaahinta. Laakiin barnaamijka ka hor waxaan aaminsanahay dhammaan dadku inay ogaayeen in warbaahintu sheegayso oo dad badan oo saaxiibada ay sheegayaan in Shahrukh Khan uu muslim ahayn, nin diinta ku toosan inuusan ahayn, islaamka inuusan ku faraxsanayn, markastana isagu uu yiraahdo erayo ka soo horjeeda islaamka iyo waxyaabo inta lamida. Laakiin se aniga shakhsiyan arintaas TV-ga kama maqal maxaa yeelay TV-ga wax yar oo kaliya ayaan daawadaa. Balse badnaashada wararka la sheegayo aniga waxaan raacay aayadda Qur'aanka ah ee ku jirta suuratul Hujurat suurada 49 aayadda 6. kuwa xaq rumeeyo hadii faasiq war idin la yimaado iska hubiya. waa isku mid waxa aan sameeyay marka midkood i weydiiyo ra'yigayga ku saabsan shay sida ay ii weydiiso oo kale gabadha wariyaha ah Barkhadad Usama bin Laden aniga waxaan erimo garanayo sida oo kale markaan maqlo waxyaabaha xun oo ku saabsan Shahrukh Khan waxaan dhahaa Ilaahu baak Allahu a'lam. laakiin waxa aan ka maqlay barnaamijka markii aan joognay anigu kama hadlayo wada sheekaysigii dhaca barnaamijka kadib. wixii aan barnaamijka ka maqlay waxaan dareemayaa anigoon ka hadlayna inuu yahay nin muslim oo diinta ku toosan ama aan ku toosnayn laakiinse jawaabooyinkiisa waxay aad uga fiicnaayeen dad badan oo muslimiin ah oo barnaamijka joogay laga reebo Maxamed Majdi waa nin saaxiibkay aad u jeclahay ma sha Allah waa nin diinta islaamka ku toosan laakiin arinta aan iska dayno jawaabaha oo barnaamijka ka bixinay runtii hadii muslimiinta kale halka jooga la barbar dhigo aad ay uga wanaagsanaayeen. asagu wuu ugu waafaqsan yahay si dhameystiran in heesaha iyo jiliinka iyo daansigu xaraan yihiin iyadoo jirto inuu arintaas sameeynaayo. asaga arintaas way la wanaagsan tahay. wuxuu ii sheegay in cilmigiisu aad u liito laakiin sidoo kale wuxuu ii sheegay si uu cilmi sax ah u helo laga maarmaan inay tahay inuu culimada wax weydiiyo. sidaa darteed jawaabooyinkiisu dad badan oo muslimiin oo barnaamijka joogay ayay ka wanaagsanaayeen. barnaamijka kadib waa uu yimid wuxuuna i weydiiyay intii aan wada hadlaynay arrin ku saabsan huwiyadda qofka muslimka iyo xaqiiqadiisa. wuxuu i weydiiyay Dr. Zakir Naik waa maxay ra'yigaaga ku saabsan muhiimadda garka in la sii daayo iyo xirashada koofiyadda sunnada ah. sidaa darteed tusaalooyin ayaan siiyay. ma ahayn barnaamij la wada sheekaysanayo telefishinka laga wada sheekaysanayo. gabadha wariyaha Barkhadadna ma joogin. sidaa darteed walaal Shahrukh Khan si fudud ayaan ugu sharxay iyadoo qof hadalka naga goynaysa aysan jirin. markaad imtixaan galayso waxaa jira su'aalaha qaar oo hal darajo lagu saxayo mid kale 10 mid kale 20 darajo. xaqiiqada qofka muslimka ah ha ahaado mid deysanaya garka ama xiranaya koofiyadda sunnada iyadoo jirto inaysan ahayn ahmiyadda ugu weyn laakiinse waa muhiim. hal darajo kale tusaale ahaan in u dhigantaa laga yaabaa. balse dhaqanka nafsad ahaantiisa inaad ahaato qof run badan xaqiiqada ka hadla waxyaabahan diinta islaamka inaad joogtaydo waxay u dhigantaa 10 darajo oo kale ama 5 darajo oo kale. sidaa darteed garka oo sii daysaa ma ahan ahmiyadda ugu weyn ee islaamka. halkaas darajo inaad ka tagtana waa suurtagal ood ku waaweyn aad sida 10ka 5 ama 20ka darajo. laakiinse qof hadii uu doono inuu gaaro meesha ugu sareeyo xitaa halkaas darajo kama tagayo. tusaale ahaan markaad galayso imtixaanka kulliyadda caafimaadka annaga waxaan isku dayaynaa xitaa inaan helno barka darajada si aan u helno 90% wax ka sareeya. markii aad rabto inaad hesho darajo ka badan 90% arintaasi aad ayay muhiim u tahay. garku waa muhiim, koofida sunnadana waa muhiim. labadooduba waa qayb kamid ah sunnada. laakiin se qofkood haduu sii daynin garkiisa ama uusan xiranin koofida sunnada ah suurtagal maaha inaan dhahno muslim maaha. ma oranayno muslim maaha maxaa yeelay garka siima daysanayo koofi sunnana ma xiranayo. markaa biro tusaale wanaagsan baad soo daysay. tusaalaha ayaa yaab galiyay. waa muhiim laga yaabo inuu dhiganto 1 darajo ama 2 darajo laakiinse waxa ugu muhiimsan waa amalka. waxyaabaha kale sida inaad qof run badan noqoto, salaada tukato, inaad shirki sameyn dhamaantood aad ayay muhiim u yihiin. sidoo kale sida aan jawaabteeda barnaamijka ku sheegayba hadii midkood uusan sii daynin garkiisa kama mid ahan 70ka dunuub ee waaweyn. waxaa jira caalim muslim ah oo magaciisa la yiraahdo Imam Dhahabi wuxuu qoray kitaab oo ku qoray 70ka dambi ee ugu waaweyn ee islaamka dhexdiisa.
midda koowaad shirkiga haddana dilka ilaa uu aakhirka meesha ugu dambeeda ka gaaro laakiinse garka in la sii daysta ka mid maaha taas macnaheedu maaha inuusan qalad ahayn culimmada qaar waxay leeyihiin waa sunno qaarkood waxay leeyihiin waa waajib in garka la sii daayo si kastoy ahaato laguma darin dunuubta waaweyn imaa inay noqoto dembi yar ama ay noqoto sunno aad u muhiim ah laakiin dunuubta waaweyn kama tirsana waxaa rajaynayna